talooyin hogaamineed oo ku wajahan guddoomiyaha degmada Kaxda Cabdiweli Xasan. Guddoomiye Cabdiweli Xasan, hogaamintaada degmada Kaxda waa fursad qiimo leh oo aad ku horumarin karto degmada, korna ugu qaadi karto nolosha shacabkaaga. Waa lagama maarmaan in aad yeelato aragti cad, maamul hufan, iyo xiriir adag oo aad la yeelato bulshadaada. Halkan waxaa ku qoran talooyin kaa caawinaya inaad si guul leh u maamusho degmada Kaxda. 1. Dhegayso shacabka degmada Kaxda oo ka jawaab baahiyahooda. La yeelo kulamo joogto ah odayaasha, haweenka, dhalinyarada iyo ganacsatada si aad u fahanto baahiyahooda. Samee xafiis furan oo muwaadiniintu si fudud kugu soo gaarsiin karaan cabashooyinkooda iyo talooyinkooda. Isticmaal baraha bulshada iyo warbaahinta si aad ula wadaagto bulshada warbixinaha maamulka iyo waxqabadkaaga. 2. Maamul hufan iyo la xisaabtan. Hubi in maamulka degmada Kaxda uu noqdo mid cadaalad ah oo si daahfuran u adeegaya shacabka, la xisaabtamo waaxyaha dawladda hoose, oo hubi in shaqaalaha degmada ay u shaqaynayaan si waxtar leh. Dagaal la gala musuqmaasuqa iyo wax isdabamarinta si dadweynuhu ugu kalsoonaado maamulkaaga. 3. Horumari adeegyada degmada Kaxda. Nadaafadda iyo bilicda degmada hagaaji adoo hubinaya in qashinka la qaado, wadooyinka la hagaajiyo, iyo goobo cusub oo lagu nasto loo sameeyo bulshada. Kor u qaad waxbarashada iyo caafimaadka adoo xoojinaya iskuulada, xarumaha caafimaadka, iyo bixinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada. Dhiirigeli ganacsiyada yaryar iyo shaqo abuurka si dhalinyarada Kaxda ay u helaan fursado shaqo iyo kobac dhaqaale. 4. Xoojinta amniga iyo xasiloonida degmada Kaxda. Si dhow ula shaqee laamaha amniga si loo sugo nabadda iyo kala dambeynta degmada. Ka shaqee xalinta khilaafaadka bulshada adoo dhexdhexaadinaya beelaha iyo kooxaha isku haya. Dhiirigeli wacyigelinta bulshada si looga hortago falalka amniga wax u dhimaya. 5. Kor u qaad dhaqaalaha iyo maalgashiga degmada Kaxda. Hagaaji nidaamka canshuur ururinta si dakhliga degmada loo kordhiyo looguna adeego shacabka. Dhiirigeli ganacsatada maxalliga ah iyo kuwa waaweyn si loo abuuro shaqooyin iyo horumar dhaqaale. Ka faa'iidayso hay'adaha horumarineed si degmada Kaxda loo gaarsiiyo mashaariic waxtar leh. 6. Iskaashi iyo wada shaqayn. Xiriir wanaagsan la yeelo dawladda dhexe iyo hay'adaha caalamiga ah si aad u hesho taageero horumarineed. La kaasho guddoomiyayaasha degmooyinka kale si aad uga faa'iidaysato waayo aragnimadooda. Ku dhiirigeli bulshada inay door ka ciyaaraan horumarka degmada si loo xoojiyo iskaashi iyo wadajir. Ugu dambayn, Guddoomiye Cabdiweli Xasan, hogaamintaada degmada Kaxda waa fursad aad ku dhigi karto taariikh wanaagsan. Haddii aad si daacadnimo leh u maamusho degmadaada, aad dhegaysato dadkaaga, aad horumariso adeegyada, aadna xoojiso amniga iyo dhaqaalaha, waxaad noqon doontaa hogaamiye lagu xasuusto waxqabad wanaagsan. Degmada Kaxda horumarkeeda waa guushaada.